والجماعة شيخنا الفاضل شيخ عمر فاروق إن شاء الله محاضراتنا وحنا نفضلها الإسراء والمعراج فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وبعد. معشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحمد الله سبحانه وتعالى على إنعامه علينا. nicmooyinka badan ee rabbigeen nagu galladaystay buu ku mahadleeyay. wa afdaluhaa waxaana ugu qiimi sarraysa nicmooyinka al-iimaan wal-islaam wal-maxabbatu bihimaa walijtimaacu min ajlihimaa. iimaanka iyo islaamnimada iyo jacayl iyaga dartood laysku jeclaado iyo kulmid loo kulmo si laysugu faa'iideeyo al-iimaan wal-islaam. ilaaha nicmadan lagu galladaystay ayaa mahadidaylkeed le. abaabulayaasha casharkan abaabulay iyo qoradan farsamada gacanta iyo ka soo qaybgalayaasha iyo inta codku gaaro oo afkan ku hadasha ayaa iyagana aan khayr ugu ducaynayaa. wabacd, intaa kadib cashirka sida cabduljabaar u sheegay al-israa wal-micraaj ayuu ku saabsan yahay. waxaan uga hadli doonaa sida soo socota. inaan marka hore tacriifiyo oo aan tilmaamo al-israa wal-micraaj maxaa la yihaa. kow. laba, inaan tilmaamo mowqicuhumaa min addiin. al-israa wal-micraaj xaggee bay diinta uga jiraan. saddex, inaan tilmaamo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jirkiisii iyo ruuxdiisii baa la dheelmay, ma riyooday oo wuxuu ma riyayahay oo inta jismigiisu yiil Makal Mukarama miyaa naftu soo wareegtay. soo jeed miyuu ku dhacay mase nabiga oo jiifa calayhi salaatu wasalaam ayaa hawsha la fuliyey. dabadeed waxaan uga gudbo doonaa insha allah goormuu ahaa xilli mucayana oo la yaqaan miyuu dhacay al-israa wal-micraaj. waxaan uga gudbi doonaa xadiidka al-israa wal-micraaj sheegaya intee riwaayuu ku yimid. dabadeed waxaan tilmaami doonaa intaa kadib wixii nabiga habeenkaa uu la kulmay baan wax ka tataaban doonaa. dabadeed waxaan taaban doonaa insha allah haddaan ummad nahay innaga oo nabiga al-israa wal-micraaj mucjisadaa le aan ummaddiisii nahay maxaa faa'iido
ahaan innaga inoo haray waxaan ku gebagabayn doonaa insha allah waxyaalaha ummaddu samayso habeenka isaga ah habeenkay malaynayaan waxyaalaha dabaaldeg iyo digdam ee la sameeyaa diintu maxay ka qabta fa arjul intibaah waxaan codsanayaa dhegaysi wacan inta goobjooggaa hadhow inayan isweydiinin maadaa qaala anifa haddaayay wadaadkii muxuu lahaa soomaal baan idinkula hadlaya cabashadaasaa ii kiinagtaalla marka hore fa arjul intibaah waxaan rabaa in la baraarugsanaado limaada mawduuca kan waa mawduuc muhiim lilgaaya maxaa ka dhigay mawduuca kan mawduuc aada iyo aad daryeel iyo ka sheekayn mudan waxaa ka dhigaya sida looga been sheegay mawduuca oo al-israa walmicraaj kutub baa laga qoray waxaa la ysku rakibay waxaan la aragoo la maqal waxaa la cuskiyey cabdullaahi ibnu cabbaas oo kale marka waa lagama maarmaan rabbigeen wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falow sadaqu llaha lakaana khayra lahum hadday ummaddu alla u run sheegaan baa u khayr badnaan lahay mar labaad fa arjul intibaa waxaan ku soo dhowaanaya tacriifka inaan tilmaamo israa maxaa la yidhaha micraajna maxaa la yidhaha israa fi luga alcarabiya waxaa lagu yidhaahdaa socod habeen dhacay socodku laba goor buu dhacaa ama habeen ama maalin buu dhacaa midka maalinnimo dhaca sidii fii suurati racdi man huwa mustakfin bileyli wasaaribun binnahaar maalinimo socodkii dhaca magaca gaari buu leeyahay saarib oo kale habeen socodka dhaca magicii asraa bicabdihi waa kaa la yiri inaguba boqooliya dheelmad baan u kala qaybinaayo qofka maalin socdana waa boqoolaan dhahna qofka habeen qoraxdoo maqan socoteeyana waa dheelmadaan dhahna ama waa guuray marka israa macnaheedu waa socod habeen gudihii dhacay micraaj tacriifkiisu waa maxay micraaj waa jaranjaro wey wax kor loo raaco wey wiish dadka qaar baa yidhaaha hiis maafi hiid miyuu ah idinkaa hiis yidhaahda miscad carabtaa tiraahda haddaba micraaj waxaa weeye aala ismu aalla wey magac alaab wey alaabtuna hawshay qabataa kor aadid alaab kor aada magaceed baa micraaj la yidhi marka tacriifku al-israa waa socod habeen dhacay micraajkuna waa alaab la fuulo korna lagu aado wey tacriifki intaasaan uga hadaya waxaan uga gudbayaa mowqica meesha ay al-israa walmicraaj diinta uga aadan yihiin waa xagga nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka jamiici alambiyaa sida nebiyaasha kale baa rabbigay markuu nabi bixiyo ummadna u bixiyo nabigaasi ciidamo iyo rag iyo hub iyo gaadiid laguma daro wax intaba ka fiican baa nabiga lagu daraa waa kelimatu xaq nabigaasi waxaa loo dhiibaya kelimatu xaq waxaa soo haraya marka nabigii kelimatu xaq ha loo dhiibo ama kitaab nabi ka horeeya ha ku shaqeeyo ama isagaba kitaab gaara ha loo soo dejiye markii nabigii la diray kelimatu xaqna lala diro ayaa waxaa loo baahan yahay ummadda nabiga loo diray wax qanciya oo ummaddu ay ku gartaan ninkan loo soo diray caadi inuusan ahayn waxaa dabadeed uhub ah oo rabbi ku ayidaa mucjiza wax la yihi mucjizo waa arin dadka uga banjarisa oo isagaa nabiga alla ku ayiday maahe axad kale hawsha ay ka suura gashaayu ma jiro magaceeda mucjizaa la yihi
haddaba nabiyaasha mucjizadaas lagu taageeray ee nabigana lagu ayiday ummaddaa nabiga loo dirayna lagu qanciyey magaceedana mucjizo la yihaa hadba xilliga nabiga la diray dhaqanada jira mid baabiisa inay noqoto wey idan takhtalifu almucjizaad waa kala duwnaanaysa xilligii nabi ciise la diray dunida takhaatiir bay ka dambaysay takhaatiirta cuduraday ka noogeen waa qof indhala-aan dhashay ama afla-aan dhashay ama cudurkan barasta la yihaa ay waxba takhaatiir ka qaban waayeen baa nabi ciise daweyn jiray markaa takhtaradii ummadda u sarreeyey buu ka sara maray nabi ciise calayhi salaatu wasalaam waqtigii nabi muuse dunida waxaa xukumi jiray falanfalowyaal nimankaasaa laga dambeeyey nebiyullaahi muuse nimankiibuu curyaamiyey nebi maxamed xilligii la diray waxaa jiray afminshaaro gabayaa oo aftahama carabkooda maalaa jiray waxaa lagu dejiyo mucjizo looga dhigay qur-aankan kariimka oo aan wax fasaaxa iyo warlakooba iyo hadal caddayn kula loolami karaa uusan jirin haddaba mucjizadaas oo rabbi uu nebiyaashiisa ku taageeray ummadaha nebiyaasha loo dirayna lagu qancinayo inuu ninkan nebi yahay lagu tusaayo al-israa walmicraaj qeybtaasay ka mid yihiin markaynu sii wadnana darajada labaad bay al-israa walmicraaj gelaysa oo nabiga mucjizadii rabbigeen ku taageeray calayhi salaatu wasalaam maadaama xilkiisa uu ka weynaa kii nabiyaashii hore oo nabiyaashii horena reere loo diray isaguna adduunka idaylkii loo diray badala maa walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih wa ilaa caadin akhaahum huuda wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa wa ilaa madyana akhaahum shucayba waid qaala muusaa liqowmihi yaa qowm hadday nebiyaashu risaaladooda reerahay nebi maxamed wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaasi baa lagu yiri wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulullaahi ilaykum jamiica marka risaaladiisii caam laga dhigay dunida ideelkeed loo diray baa mucjizaadkiisii laga dhigay kuwa ka badan nebiyaashii ka horeeyey oo dhan idan mucjizada nabiga kowlaba haddii la yihaa kun bay ka badanaysa kun waa ka badanta laakiin waa kale waaweynta afdaluhaa wa acdamuhaa alqur'aanu alkariim baa mucjizadii koobaada lagu caraystay nimankii fasiixada yaqaanay ee xilligaa nabiga noolaa lagu yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina faatuu bisuurati min mili bicashri suwarin min mili qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu calى an yaatuu bimili hada اlqur'an laa yaatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdi dahiira iyadaa lambar wana sheikh ibraahim ulaqaani la yihaa oo culamaa lmutakalimiin kamida qasiido buu leeyahay loogu talagalay inay towxiidka tilmaanto jawaaratu towxiid baa la yihaa arrinkan kolkuu ka hadlayay wa mucjizaatuhu kahiirat gurar minhaa kalaamullaahi sayid اlbashar mucjizaadka nabiga waana tiro badan yihiin waana wada qiimi badan yihiin ilaahay qur-aankiisana kamida idan qur-aanka baa awalu mucjiza ah wa haani mucjiza waxay noqon al-israa walmicraaj ma jirin horena uma dhicin nabigan isaga inuu samada la aadiyey isaga unbuu ahaa kii samada la aadiyey idan al-israa walmicraaj waa mucjizaadka nabiga lagu galladaystay waana tii labaad xagga qiimiga iyo afdaliyada iyo darajada markaynu mucjizo ku sheegnay
waxa mucjize la yidhaha ma waxa nabigu sameeya ma sameehe allah sameeyey almucjizatu ficlu llahi caza wajal mucjizadu waa wax alla sameeyey waxa nabiga waa loo sameeyey oo waa lagu ayaday laakiin isagu ma samayn shaqana kuma bidaliil waxaa lagu garanayaa arrinkaas nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ushii uu watay goorta mucjize loo bedelay wa alqi casaaka falamaa ra'aahaa tahtazu kaannahaa jaanun walaa mudbiran walam yucaqibhu ila ul buu watay nebi muuse dhulka dhig baa la yidhi abeesay noqotay usha abeesanimo kuma uusan ogeyn isna nafluu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam caguhu wax ka dayay naftiisu la cararay walaa mudbiran walam yucaqib dib ma soo dayin rabbi baa la hadlay yaa muusaa laa takhaf inii laa yakhaafu ladaya almursaluun yaa muusaa aqbil walaa takhaf inaka min alaaminiin yaa muusaa khudhaa walaa takhaf sanuciiduhaa siirataha aluulaa waxaasi muusaa rabbi geesinimo gelinayey ku noqo u shaqaad ulnimay u noqonaysaaye marka waxaad moodaa hawshu tababarba inay ahaydo markii fircoon loo tago usha dhulka la dhigay halaq noqoto muuse hadduu ku lug daray inta cararta xoogaa foolxumay noqon lahay marka ushi iyo muuse bannaan baa laysku baray marka waa muusihii ushii alla keligood wey alqi casaaka fa alqaahaa faidaa hiya xayatun tascaa sidoo kale gacantiisii nuuraysay wa adkhil yadaka fii jaybika takhruj baydaa min gayri suu aayatan ukhraa markaa tababarkan meel duuroo cidluu ku qaatay lama oga marka hadhow nina qoygii uu jebiyey khajaftiisa kama nace gacanta markuu meeshii geliyey shidantoy siraadanto iyo usha markuu dhigay halaq noqoto horu u ogaa baqi maayo marka kudi kalas waa kala cararaya idan min huna nastadilu calaa ana almucjizata hiya ficlu llah meeshaa waxaan ka ogaanay mucjizadu ficil alla sameeyey inay tahay nabiguna uusan shaqo ku lahayn uusan isagu samayn karin idan alisraau waalmicraaj waa mucjiza lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam min asli diin bay ka mid tahay allah sameeyey nabigaa lagu taageeray mucjizadii labaad wey labadoodii aynu kala qaadna marka alisraa wuxuu dhacay maki iyo baytulmaqdis dhexdooda ama almicraaj baytulmaqdis buu ka bilaabanayaa ila aljabbaari jala jalaaluh qaybtan hore markaa waa laba rixlo wey laba safar wey rixla ardiya wa rixlatun samaawiya maka laga bilaabay ilaa baytulmaqdis laga gaaro safar dhulka korkiisa lagu safray walow xayawaankii nabiga uu saarnaa iyo socodkiisa waxaan buubidna ahayn ee ka gaabiya dhul socodna ka dheereeya baa lagu tilmaamay waxaa layidhi gaadiidkii nabiga uu fuulay qoobka waxay dhigaysay meesha il araggeeda uu ku dhammaado idan waa waxaad moodid buubid bay socod uga dhowda il araggeed bay qoobka dhigaysa laakiin waxaan dhulba isku taagin oo buubay maaha alrixlatu alardiya safarka qaybtiisa hore ee dhulka korkiisa ku dhacay qur-aankaa sugay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa qur-aankii baa sheegay qaybta labaad ee samaawiga ah cirfuulidda ah sunnadii baa sugto fii saxiixi albukhaari baad xadiidkii micraajka ku arateen in samaawaadka markii nabiga uu maraayey calayhi salaatu wasalaam waxay marka kala qaadaan culamada qaarkood
maadaama isruhu uu ku sugnaaday qur'aanka micraajkuna uu ku sugnaaday sunnaha ninka israha diida iyo ninka micraajka diida hala kala qaado israha ma jira ninka yidhaha maxaynu horeynaa gaal ilaa qur-aan buu diiday micraajka ninka diidaana maxaynu hore faasiq warna laa fardaaliyo wax quman ma tihi ima muuqata tafriiqaas aniga walastu calaa hada ariiq waa isku mid labadooda qofkii diida gaal wey sababtana waxaa wey tafriiqa qur-aanka iyo xadiiska la kala qaadayo waa madkhal shaytaan oo diinta looga soo galayo wey waanuu bilowday wakhtiyaalkan dambe oo caqlaaniyiin dad la yihaa oo caqligooda waayeel ka dhigay oo diintii odhanaya caqliga ma gelayso idan caqligooday waayeel ka dhigeen diintiina farac dabagalahay ka dhigeen walcagsu saxiix sida caafimaad qabta waxaa weeye diintaa waayeel ah caqliga qiimigiisa inuu diintii garto wey inuu la loolamo ama hor ordaa ma ah hadduu caqliga diinta garan waayaana caqli maa nimankii quraysh ee aayooyinkood guursan jiray ee ubadkooda nolosha ku xabaali jiray ee timirta marna cuni jiray marna caabudi jiray ma oran kartaa caqli ma leh muxuuse caqligoodii taray diinka hor caqligana lagama maarmo sababtoa diintaa lagu fahmaa oo xayawaankan maalaayacqilka ah waxaa takliifta looga dulqaaday waxba yan garanay haddaad qur-aanka akridana qur-aanka wuxuu la hadlayaa quluubta caqligu la hadlaa qur-aanka aayaddiina waxaa lagu gebagabaynaya ina fii dalika la aayata liqowmin yacqiluun idan caqliga qiimigiisu waa maxay waa inuu waxyiga fahmo wey goormuu wuxuu dad noqonaya goortuu caqli iyo waxyiga isku darsado waxyigana waayeela raaca laga dhigo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum laakiin aan laga soo horjeedinin labadoodii dabadeedna caqliga aan waayeel laga dhigin markaa la yidhaahdo mas'alada tan qur-aanku sheegay caqliga ma gelayso waddada haddii la mara maxaa dhacay quraysh waxaa lagu qancin waaye oo geli weyday geeri dabadeed baa lasoo noqonaya haddaad u fiirsatana wuxuu caqliga fahmi kara maaha qofkii waa dhintay dhulkaa lagu duugay muddo badan buu ku jiray wuu baaba'ay caradii buu ka mid noqday laf iyo lud iyo dhacan wax baaqi a ma leh sidiisii buu ku soo noqonaya caqligu ma ogolaan karo mid kalaa la umayaa laakiin ka waa baaba'ay see loo soo celiyaa waxaa la soo celiyaa wax jira marka nimankii waxaa la dhaafin waaye aidaa mitnaa wa kunnaa turaaba wacidaaman aynaa lamabcuuhuuna khalqan jadiidan laakiin marka garta la siinaye qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mimaa yakburu fii suduurikum fasayaquuluuna man yuciiduna qul iladii fatarakum awala mara war kolkii hore laydin uumaye maxaad haydeen waxba markaad baaba'deenna waxba dee allihii weeye waxaa hawsha qabanaya waqad khalaqtuka min qablu walam taku shaya idan caqliga qiimigiisii waa inuu waxyigii fahmin laga hor keenaa maa haddaba mucjiza alisraa walmicraaj waa mucjiza alla sameeyey nabigana lagu ayiday welidaa sidaa daraaddeed ba waxaad arki doontaa goortay mucjizadan dhacday alisraa walmicraaj kadib habeen keliya gudihii bay dhacday kolkuu nabiga intuu soo noqday ummaddii u sheegay quraysh aad bay warka u baciidsaday lacagli bay ku xisaabtameen waxaan suuragal ahayn bay ka dhigeen 3 qaybood bay noqdeen qole afka majuujisoo dhankaa u duuda qofka markuu yaabo oo wuxuusan qaadan karin loo sheego waa tacajub heer dhaaf
afka mid majuujiye kow labada gacmoodba mid madaxa isugu geeye laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah hadday yaqaaniin iyo mid bawdyaha dhirbaaxa bayna musafiqin bawdyaha mid dhirbaaxa iyo afka mid qalloociya iyo gacmaha mid madaxa isugu geeya waxay cabirayaan kolka warkaan loo sheegay beennimadiisa iyo been kufacweynidiisa ilaa war horaa laga hayay samaawaadka intay isu jiraan labada sama dhexdoodaba 500 sana loo socdaay samada kaliya tajurmigeeda 500 baa loo socdaa wixii waa 7 samiya 7 hawo baytulmaqdis iyo makana 40 bari baa loo socdaa bil iyo 10 bari marka safarkii dhulka iyo kii samada iyo wixii oo dhan habeen kaliya gudihiis quraysh waxay yiraahdeen cadawgaaga goortuu khatar halisa la kulmo waa lagu wiirsadaa sooma nagaala god iigu jiray garweynta iiga maanta ninkan iyo ummadda kala harayaan waxay yiraahdeen ninkaasaan ma sheegay ha abi jahl baa maqlay wuxuu yiri war haddaan quraysh ku soo ururiyo waxaad ii sheegaysaa buu sheegi kartaa kolkaasaa nabigu yiri abaal baan ku qabaa waxay soo ururiyaan la abi jahl baa xusladu magaaladii makiintu biib iyo tanag maran u qaatay iyo meel ku soo kuusay oo yiri balkaay ninkan war cusub wada ka dhageysta Abu Bakar baa loo tagay waxa la yiri qurayshtan kala kuma fille Abu Bakar hal waa ninkan laga daba reebi waayay goobjoog ha noqdo wuxuu ku hadlaya caaw abi jahl waa orday markuu ragii kala ku soo Abu Bakar doonay wuxuu yiri Abu Bakar saaxibka war culus buu keenay kali dhageysa buu yiri wuxuu yiri buu sheekadii buu sheegay aw qaalaha buu السؤال بويدي هذا كما الله يسكر مسا اسغي با يري و اسغي با يري وارنتيس حدو انو يري اد اي وبتا وارنتيس ورمحد وارنتي او تري بو يري وحو يري بيننا وو كعاغن yahay warkaas ka weyn baan ugu hogaansamo ninkan aniga iyo cirku isku xiru yiri waxaygi buu ka hadlay war alla yiri buu waagi baryaba noo keenaa buu yiri إله وين واحد كان رميسنا هنا وحو علماها أبو بكر قال كماشا وركنا في وعوي وهو حوش أركمد إلهي قفت وحونا رميسنا إن الله على كل شيء قدير كوان كفورك قالوا عنا أينا تبر بني آدم يكون حساب تمام مركا تبر بني آدم دول كان وحلو صعدا بلي تبن بري أفرتن بري ماشان إركا أنا وحلق لك بحي كربا ماها ولقد وحادينا مجره kolkay bani aadam tabartii ku xisaabtamaana kolkay gafuurka qaloocinaya Abu Bakarna wuxuu arkay hawsha Allah qabtay ninkan beenna waa ka cagan yahay khabar samaay baan ku aaminay buu yiri irka warka keena on daa'iman maqlaaye isaga had warka waa biyo kama dhibcaan naanaysta fuushay Abu Bakar oo Abu Bakar Sidiiq loo bixiyay habeenkay fuushay waa habeenka qadiyatu sawal mi'raj إذن الإسراء والمعراج موقعها من الدين وعقيدة كمتها ومعجزة النبي أنه كرميني سلاسة قرآن كي حديث كي لبدا أوك لسوغيهين قيبين توضا قيمي ملأ ويسكمت قرآن كالنبي قال لغا مغلي حديث كالنبي قال لغا مغلي حديث كمار حديث حديث سقناته وهذا إمام البخاري باوريي كذب لا مطعنا لطاعين فرلنا قرين واسل بينين كرا قف كلمه كو غالوبا اذا الاسراء والمعراج واللبداس معجزه وهبين كليه غديhiisa dhacday nabigana u dhacday in la rumeeyana waa waajib waana mucjizaadkii nabiga waana tii labaad waxay gashay marka mawqicuha min diin aqiidaw waxaan uga gudbayaa nabiga wixii meesha loo qaaday ma isaga mariyooday sida dadka qaar yiri mase riyo ma ahayn isaga iyo jirkiisa baa labadiiba la qaaday ma soo jeeday
مسووه هردي jawaabta kooban aan ka bixinayo intaas la isku daray waxa weeye horta isruhu iyo micraajkaba waxay dhaceen liruuxihi wa jasadihi macan jirkiisa iyo ruuxdiisa oo isku jira bay labaduba dhaceen wa yaqdatan laa manaam isagoo soo jeeda bay wuxuna dhaceen ama aladilla toban daliil baa loo haya iyo ziyaado waxaad ka bilowdaa daliilka ku tusinaya inay waxaani soo jeedna uu ku dhacay jasad iyo ruuxna ay u dhannaayeen kelimatu subxaan subxaan kelimadeeda litacajub baa loo dejiyey waxyaalaha yaab kale haddaba hadday wuxuu riyo tahay riyo ma wax subxaan la yidhaahda innaga intaan goor baan habeenkii riyoonna waxun iyo waxsanba intaynu ku riyoonna laa xasra walaa cadad idan kelimada subxaan la yihaah loona dejiyey waxyaalaha yaab kale baa ku tusinaysa waxaan caadi ahayn dadkana u wada dhicin inuu yahay kelimatu subxaan baa ku tusinaysa aladii asraa bicabdihi kelimatu asraana naftu markay jirka ka baxday keligee tahay waxay samaysaa asraa lama yihaahdee waxa waa dheelmaday la yihaah naf maaha waa jismi baa dheelmada markaad ka gudubto kelimatu bicabdihi cabdi maxaa la yihaah ilaa wixii la dheelmay cabdi buu ahaay cabdi ma naftoo keliya cabdi la yihaah jawaabtu waa maya naf ruux iyo naf baa la yihaah jirkoo keligiisa ooyo nafi ku jirina maxaa la yihaah jasad cijlan jasadan jurman derbigaan oo kale waxaan naf lahayn laakiin markii la isku daro jirkii iyo naftii magacood cabdi baa la yihaah marka bicabdihida baa nabiga meesha inuu maray ku tusinaysa taxdiidu lmasaafa min almasjid ila almasjid socod meelna ka bilowda meelna ku dhammaada waa socodka jirka uu sameeyee na fikirtay ama hawada buubuubtay masaafo looma xadidi kara intaasay martay xaggaasay ka baxday wax dhihi kara male laakiin wixii jasadee meel alaa waxaa la dhihi karaa ibtidaau lmasaafa wa intihaau lmasaafa ibtidaau lmasaafa waa min markaad min leedahay socodkaaga meesha uu ka bilowday baa tilmaantay ilaa markaad tiraa meeshuu ku dhammaado qur-aankana saasuu ku soo arooray subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa axaadiistii sharaxdee qisada ka sheekaystoo dhan waa u daliil idan yaa la dheelmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam jasad iyo ruux buu u dhacay adiladaasna waana tusisay haddaynu uga gudubno yaa wariyey xadiidka alisraa walmicraaj waxaa warisay 25 saxaabiya 25 saxaabi ayaa xadiidka warisay cumar waa ka mid cali waa ka mid anas ibni maalig waa ka mid abu hurayre waa ka mid burayda bini yaxsub waa ka mid asma iyo caaisho ilmo abubakaraba waa ka mid 25 saxaabi baa xadiidka warisay idan kii dheeraad ku daray iyo kii wax ka dhimayba 25 saxaabi baa nabiga cabdullaahi bin cumar waa ka mid baa xadiidkan warisay waxaan uga gudbayaa tacyiinka habeenkaa kuma waha habeenkaasi 6 qowl baa laysugu khilaafay
قول وحاسف عنا كوبان قري صفي الرحمن مبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم قولك كوباد وحوليه نبي لماذا إلا سعوتي أرنتو ومركي النبي عمري سافرت له بحسمي أين هاي بالرمضان أيها وحي ونبي أب اللوذي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بيلب الله بتيب لي الإمام ابن جرير الطبري تابعي سيد المفسرين برأيه كتير رأيك الله بعد ما وحوليه نبي لماذا ويكدم بيس شنسا يكدم بيس نبي لماذا مركب باللابطي شنسا لما رأيه أيها إسراء يا معراجك داعي إمام النووي إمام القرطبي ما قولك هذا بقاتي تضبي اللباتن كرجبوها نبي لماذا سنة كي تمناد بي مريسي منصور فوري نيلا يرا با فكرة دا كوتي هجرة مركي اللحية طبان بلود لغا جوغي وبالرمضان سنة كي لبئية تمناد نبي لماذا أي مريسي أي هيد واقو قولك سنادنا هجرة مركي سنة إيا لبا بلود لغا جوغي بشو محرم بي هيد نبي لماذا صدحية طبان بي مريسي قولك ودن بي اللحاد هجردي كهر سنة بيهاي بشو ربيع الأول بيهاي سنة كنا صدح يتوان بان نبي نمدي لغا جوغي صدح ذا قوله هراء مد كان للنبي نمدي لسعودي إيا مد كان لشنسن وكدن بيهي إيا مد كان لرجب وسنة كي تبناده أيوها صدح ذا قول با waxaa la isku raacsan yahay salaada in habeenka la farad yeelay al-Israa wal Mi'raaj Khadiijana radiyallahu anha ma ay logay salaada in la farad yeelay marka saddexda qowl ba daciif marka qowlkiinu ku dul dhimanay tabaylaha al-ra'i maxaa jira salaada waxa la waajibiyay shanta salaad leeyahay al-Israa wal Mi'raaj Khadiija radiyallahu anha ما أوجين صلاة ما ينسو قارين ولا يسكون رحسية تاوى بيا كما لبعان إذن سدح ذا قوله هرب يسكيلو سدح ذا قوله دنباء سيدي اللوك على الرجيح الهبا ولي مقلع إذن وقت هذه معها محدد هبينك الإسراء والمعراج ودعي هبين محددة والله يسكون رحسن يا هاي ماها وهو إلى يومنا هذا اللي يسكون هايسته اللي حقولنا له مركا وحايدي من رحلة دي إنا سيولد على دول مره زاد المعاد لابن القيم إن كاسو حجاه dadka diinta alle u saalee ka run sheega buu ninkaana ka soo qaatay wuxuu leeyahay nabiga saynu rajaxna jirkiisa iyo naftiisa la wada dheelmay xaramka laga qaaday baytulmaqdis baa la geeyay gaadiid buu fuulay gaadiidka magaciisa buraaq baa la oran jiray magaceeda wuxuu wehelayahay ama laga soo qaatay meel barqi ilaa waxa weeye socodkeeda aad u degdegayay wuxuu ku qiyaasay wax dameerina ka weyn baqalna ka yar nooca daabada loo yaqaan bay ahayd nooceedu nabiga ka hor iyo kadib midna lama fuulin gaadiid gaara unbuu ahaa habeenkaasaa nabiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam waxyaalaad ka fahmaysaa waxaa ka mid a jacaylka loo qabay yeermadiisa marka haddeer la iskaraamaynayo martida aad loo jecel yahay waa la doonaa laguma suga goobta iyo golaha
laakiin martidii mujaamale iyo xoogaa warqad baa loo diraa infito waad imaan kartaa unbaa la yiri goortuu yimaad baa meel la geeya iyo nin aqalkiisii laga doonay markuu tilmaamayo wuxuu leeyahay cali abi aalib iyo hebel baan u dhexeeyey xaaladaydu waxay maraysay soo jeed iyo hurdo wax ka dhexeeya macnaha nin dhinaca dhulka u yaal hase yeeshee dareenkiisii uu joogo iyadoo layu kor sheekaysan baan maqlay laleeyahay ayuhum huwa saddex baa isgarba jiiftee kaynramay waa ke oo markaa malagu leeyahy warma midkaa dhexda ku jira wey markaasaa inta lay qaaday baa lay dooxay dhuunta laga bilaabay ilaa gumeerka sidii neef ari oo la solayo baa la tariiqay wadnihiisa intii meeshii loogu tegay baa la mayray nacasnimoo dhan baa banaanka lagu daray waxbaa lala maagan yahay waxaan loo adkaysan karin iimaan iyo yaqiin iyo dadnimo iyo deganaan baa dhuunta laga keenay xaaladiiba waa la tolay muluq buu noqday dabadeedna faraskoo diyaaruu raacay jibriil baana la jiray marka uu tegay baytulmaqdes waxaa lagu kulmiyey ama loo kulmiyey arwaaxul ambiyaa nabiyaashii baa loo kulmiyey si darajadiisi loo muujiyo ayuu halkaa ku tujiyey giddigood buu halkaa ku tujiyey waxaa muuqata kolka sababkii keenay alisraa walmicraaj baynaan taaban sababku wuxuu ahaa nabiga saa ogtihiin nabinimaa u timid dunida ideelkeed baana loo diray magaaladii makees ku dhashayna waa raaci weyday inkastoo raka raaceen odayaasheedii baa ka soo horjeestay daa'if buu daqaqan ku tegey amay dhaantaa mako way soo dhagax tuurtay kusoo noqodkii maka uu ku soo noqdayna waa loo diiday aad buu u walwalay nabiga war dunidoo dhan baa kuu dhiman oo ku sugaysee daa'if iyo makabase waa kaa hor yimaadeene sidee baad wax yeeli doontaa waxaasaa qalbigiisa laga masxayey dhibaatadii loo geystay markaasaa samada albaabadeediina loo furay intii samada joogtayna ay soo dhoweysay darajadiisiina waa taa la muujiyey oo nabiyaalkao dhan oo la kulmiyey ayuu imaam u noqdoo 2 ragca tujiyey marka waxay ahaydba sabeen xir ama dhayma la dhayaayey ama dhibaatadii daa'if ku qabsataa laga baabi'inayey wuxuu dhacay al-israa wal-micraaj bacda caami alxusni sanadkii walwalka sanad loo bixiyey oy khadiijo dhimatay abi aalibna dhintay dadkii looga baqaayey dacwada uu ku waday sanadkaasoo walwalkiisu badnaa dabadiisa yuu dhacay haddaba arrimaha noocaasa qiimigiisaa la tusaayey dalal badan baa la mariyey webiyaal badan baa la tusay qalbigiisa waxaa la mayrayey markaa samada koobaad markuu marayey nebi aadan baa ku soo dhoweeyey salaan isdhaafsadeen inuu nebi yahayna u sheegay halkaa odaga oo midigtiisa dadkii shuhadada ahaa arwaaxdoodii joogaan bidixdana dadkii ayaanka daraabuu la kulmay odaga oo marna farxaya markuu midigtiisa dayo bidix markuu dayna weji xumaanayo samadii labaad markuu fuulayna yaxya ciisuu kula kulmay halkaasay ku soo dhoweeyeen nebinimadiisana qireen soo dhoweynta la soo dhoweyn baad garanaysa in la ilowsiinayo dhibaatadii dhulka uu kala kulmay baa cirka looga mayraya samada 6aad markuu fuulayna nebi yuusuf buu la kulmay soo dhoweyn iyo salaam bay isdhaafsadeen samada 4aad markuu fuulay nebi idriis buu kula kulmay soo dhoweyn iyo salaam baa la isdhaafsaday samada 5aad markuu fuulay haaruun buu la kulmay salaan iyo soo dhoweyn baa la isdhaafsaday samada 6aad markuu maraayeyna muusuu kula kulmay salaan iyo soo dhoweyn baa la isdhaafsaday si aan caadi ahayn muuse markii uu nabiga ka tegey buu ooyoo ilmeeyey waa la weydiiyey maxaa kugu dhacay wiilkaa yar buu yidhi gadaashay baa la bixiyey ummadda jannada ka gelaysa inta jannada ka gelaysa ummaddiisa baa aad iyo aad uga badan inta ummadayda ka janno gelaysa kolka waa
khayr jacayl maahe xasadnimo maaha marka khibda taasoo kale la yihaa oo khayrka in lagu loolamo oo la kala badiyo waxaadna ka arkaysaa nasiixada markii dambe uu geystay inayan xasadnimo ka ahayn samada 7 marka uu fulayna ninkii nin ahaa nabi ibraahim buu kula kulmay halkaas salaan iyo soo dhoweyn baa ka dhacday iyo nebinimadiisa oo la qiray meeshaa wuxuu kaga gudbay caalamkan hoose kadibna sidratulmuntahaa waa geed wixii ka sarreeyaana ma soo dhaafaan waxa ka hooseeyaana koruma gudbaan socodkaa hore geedkaasi kadib baa baytulmacmuur waa aqal maka ku quman malaa'igta alle ku caabuda yowmiya 70,000 baa aqalkaa ku cibaadaysata dibna uguma soo noqdaan laga bilaabo markii la bilaabay adduunka ilaa yowmi alqiyaama halkaasaad ka garan kartaa malaa'ig tira badnaanteeda maalinkii la taagay ilaa yowmi alqiyaama baa yowmiya 70,000 meesha alle uga caabudaa dibna weligood uguma soo noqdaan intaa kadib nabiga allah loo geeyey halkaas alla ku kulmeen dabadeed 50 salaadood baa markii hore lagu soo waajibiyey markii dambana nabi muuse la taliyo ku yiri ummaddu ma awooda allana caawa waa uu ku rabaaye ku noqo muddo doora buu muuse samada 6 jooga iyo aljabbaar jalla jalaaluhu oo samaawaadka ka shisheeya ayuu u kala socday ilaa 50kii lagu soo reebay 5 markaa kadib baa muuse yidhi warshana ma tukan karaane oradoo alla u tagoo nabigu markaa yidhi in badan buu alla iga xishooday hadda anaa ka xishoonayo ku noqon maayo allana uu meeshuu joogay ka yidhi waan saxiixay anigana intaan fududayn karan horaan buu fudaydiyey intaa kadib masalada taabashada mudan baa waxay tahay nabiga rabbigii ma arkay mase ma arag oo indhihii madaxiisa ma ku arkay saxiix muslim wuxuu sheegayaa in la weydiiyey nabiga wuxuuna yidhi nuurun annaa uraah waa nuura see baan u arki karaa macnaha nuur xoog badan ishaadana ka quwo badan ilaa allaahu nuuru samaawaati walardi waa ka qur-aanka yidhi xijaabuhu nuur subuxaatu wajhihi iftiinka wejiga alla ka baxaya arlada iyo adduunka haddii lagu daayo waa dhalaalinaya idan ma xamili karo ma arki karo buu xadiidku u eg yahay qaar baa yidhi waa tacajub allow simuu arkay buu ka wadaa calaa kulli xaal ma sugnaanin madhabkii umuna caaishiya ay asxaabta badankeed ku tageen waxaa wey habeenkaa nabiga alla indhihiisa kuma arago maba uu xamili karo laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir marka ru'yadii ma sugnaan cabdullaahi ibnu cabaas baa sheegay baa la yidhi oo arkay caqiidadan ashcariyada ah baa qabta inuu nabiga alla arkay laakiin iyaga naftoodii maxay yidhaahdeen xataa ra'aa nabiyu rabban kalama min gayri kayfin wainxisaarin wuu arkay laakiin habku arkayna ma yaqaan aragna kuma koobin idan ma arkin usoo macnihii maaha xataa ra'aa nabiyu rabban kalama min gayri kayfin wainxisaar arag kuma koobin iftiin baa u baxay taana waa xagga nabiga araggiisa uu habeenka alla arkay amuusan arkin waxyaalo aada u tiro badan buu nabiga habeenka la kulmay waxaa ka mid ahaa markuu meesha tegey in loo bandhigay khamri iyo caanaa loo wada taagay iyo biyo riwaayadka qaar baa ku daray kan caani iyo khamri unbuu dhigay markii labadiiba soo dhowey xagga markuu tegey sharaab ahaan loogu keenay caanihii buu doortay jibriil baa yidhi nin ya wax kaa nasiib badan lama arag khamre haddaad dooran lahayd ummadaadu waa wareeri lahayd waa baadiyoon lahayd buu yidhi biyo haddaad dooran lahaydna ummadaada waa haftoomi lahayd buu yidhi caanaad dooratay caano waa maslaxo wehella dhibaatana caano male xasabta alfidra
afar webi buu nabiga arkay laba muuqata oo niil iyo furaada iyo laba kaloon muuqan waxaana bishaaro unba yahay la tusaayey in risaaladiisa ay dunida saaban doonto baa la tusaayey wuxuu arkay malaga maalig liyaa naarta fureedahay maalig markuu ka warbixinay nin qoslaamaha buu yiri waa malag naartuu ka shaqeeya waa kuwii alla yiri buu odayba u yahay calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad marka khilaad iyo shidaad khilaadku waa jirka qallafsan oo naxariis laabayaal oo xoog badan oo dadka la calaabayo xilligoodii markii la gaaro 70 kun baa la isku xiraaya gacantan bidixuu ku qabanaya 70 kunna waa la isku xiraaya gacantan bidixuu ku qabanaya marka 140 kun buu mar ku galaatinaya khilaadun shidaad ma qoslaba nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waa markuu arkay malaga cajaa'ibta leh waxyaaluhu nabiga arkay waxaa ka mid a afartaa weeye buu arkay malaga naartana wuu arkay qolada agoonta xoolaheeda gardarrada ku cunta wuxuu arkay iyagoo bishimo geel leh bishimahoodii inta la dheerdheereeyey bishimo geel laga dhigay baa naar dooliye la eg ama jiir afka loogu tuuraya gabal naara oo dooli la eg iyagoo bishimo waaweyn baa gafuurka looga dhufanaya dabadoodu ka baxaya wuxuu arkay nabigu qolada ribada cunta oo intay calooshu baxday gurigan sartaan la ekaatay calooshii kacakufayo nuuxsan la calooshii baan loo talin karin qur-aankuna wuu tilmaamay aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas marka inuu kucuu rabaa meesha ka dhaqaaqo calooshii walayska ka badatay bal kusoo dhufanaysa kolka maanta o dhan kacakuf buu ku jiraa sidii qof waalan oo kale wuxuu arkay dadka sinaysta oy hor yaallaan hilib urayo caata ah iyo hilib buuran oo si fiican loo kariyey oo intay kii fiicnaa dhaafeen kii xumaa cunaya wuxuu arkay haween naasooda dhirirka ka bateenoo xarka inta laga dhigay jirkooda lagu xirxiray markuu nabiga weydiiyeyna jibriil wuxuu ku yidhi waa haweenka intay suuqa galaan oy ilmahan reerka ka dhalan la yimaadaan dabadeedna odagoo miskiina ku labo yidhahda adiga dhalay wuxuu nabiga arkay waxweyna la qabtay markaa isaga uu meesha marayay baa qureesh safar ay leedahay ayaa aaday baytulmaqdes qoladii buu dul maray isagoo la wado wuu oonaayo biyo meel yiil xoogaa buu ka cabay wuuna u daboolay kolkaa faras riti baa ka lumay ritigii meeshuu joogu wuu tilmaamay way heleen ritigii soo noqodkiibuu haddana soo dulmaray wuxuu u sheegay xilligay magaalada soo galayeen qoraxda soo bixideeda iyo safarkiini baa magaalada maka ku kulmaayuu yidhi waxaana u horeeya ritiga tilmaantaale iyagoo aada u jeclaa wuxun inay ku beenoobaan bay safrihii ka hor baxeen isu taageen jidkii looga imaanayay baytulmaqdis dabadeed goortay yimaadeen qoraxdiina waa eegayeen safarkiina waa eegayeen soo bixidii qoraxdiiyo safarkii imaatinkiisaa kulmay wataa qoraxdii safarkiina wakaasaa la yihi inay daqiiqi isdhaafaan waa jeclaayeen ritiguu tilmaamay baa u horeeya markii dambe waxay ku xujeeyeen inuusan weligii safrin kama bixin makaa la ogaa baytulmaqdes tilmaam baa la yihi markuu tilmaamayey taasaa shakiya galay buu yihi jibriil baa intuu soo fujiyey hor dhigay marka albaabadiisiisa u samaysnaa intuu ka koomay wuxuu ahaa buu xabad xabad u sheegay waxay waayeen waxay nabiga ku celiyaan oo yidhahdaan waxaasuu ku been sheegay meeshaa waxaa ka muuqata murti aada u culus
murtiduna waxaa wey nabiga intii ka horreysay dunida waxay wadaadnimo uga dambaysay yahuud xil wareejin bay hawshu ahay labadan xaram oo midkaan maka ku yaal ilaa kan madiine hijradii buu ku soo bixi doonaa xaramkan maka ku yaal iyo midkaan baytulmaqdes ku yaalana labadaba nabi ibraahim baa dhisay markaa xilkii nebi ibraahim ayaa ninkan habeenkaasuu la wareegayey xigmaa ku jirtay marka meeshaa in la geeyey meelaha badanna la mariyey sharaftiisii baa calayhi salaatu wasalaam meeshaa alle ka muujinayey waxaad arkaysaa markii nabigu calayhi salaatu wasalaam isrihii iyo micraajkay u soo dhammaadeen baycatulcaqab uu bilaabay qoladii madiine joogtay xaramkii saddexaad baa samaysmaya ayuu ballan la galay sanadkii hore 6 bay ahaayeen sanadkii xigayna 12 bay ahaayeen sanadkii saddexaadna 75 dhowr dumar tahay dabadeedna waa la guuriyey dowladdiina waa la sameeyey madiina munawara ayaa lagu sameeyey marka isrihii iyo micraajkii kadib buu nabiga hawlihiisiina la wareegay dowladdiisiina sameeyey dunidii marka qaybsanayd baa isugu dhacday nabinimadii reereer ahayd oo dhan buu keligii la wareegay howluhu habeenkaa nabiga la kulmayna howlahaasaa ka mid ahaa markaynu dhahnay innaga faa'iidada ummad ahaana inu dhaxallay waa maxay oo safarkaa qiimiga badan ee dhacay ummad ahaan markaynu ummatu muxamed nahay faa'iidaynu ka dhaxallay waxaa weeye asalawaatu alkhamsu faa'iida muuqata salaadan qiimiga badan ee ah xiriirka ka dhexeeya allihii addoomihiisa ee nabigeenu yidhi maalintii qofkii 5 geyr qabaysta ma wasakh baa ku haraysa jawaabtu waa maya fakadalika midlu salawaati alkhams yamxu llaahu bihina alkhataaya salaadan ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dembigay xaaqdaa oy mayrtaa la yidhi faa'iida habeenkaa inoo xasishay ee nabiga inoo dhaafay ee habeenkaa noo soo hoyatay waa 5 salaadood waxaa kale oo faa'iide ahay maadaama ayaa nabiyaashii hore cir aadin innaga nabigeenniina uu cirka aaday ummadda inay cirka aadi doonto oo abboolayaal layska dabadiri doono iyaduna waxay ahayd nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jiduu jeexay bay ahayd iyadana waa faa'iido ummadatan meesha milkigeedii iyo awooddeeda thaqaafadeeda gaartay ummadihii inaga horreeyey 69 ummad baa inaga horreysay 70kii baynu dhammaystirayna kolkaa ma jirin hanqaltaag iyo cir aadid ummaddan ka hor ma jirin ummaddatana nabigeedii baa meesha aaday marka waxay kala kulantaaba waa fadli nabigii uu inoo dhaafay iyo 5 salaadood ugu dambaystii arrimaha waaweyn ee habeenkaa la sameeyo waa habeenkan la tuhmaayo oo aynu ku darnay qowlkii daciifka ahaa micraajka xoolaynu qallaa mawluud iyo alaabbaynu akrinaa digdab iyo uunsi badan iyo cadar baa laysku jiidaa waxaasoo dhan jinni ku xaqsay wey wax diinta asal kulana male nabigeenni ma samayn calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisiina ma samaynin aimatu lmujtahidiin raggii ragaha ma samaynin alquruun almufadala 3dii qarni ma ayan samaynin waa min muxdathaati اlumuur waxyaalahaynu dib ka keennay wey wakulu muxdathatin bidca wakulu bidcatin dalaala wakulu dalaalatin fi اnnaar acaadana allahu waإiyaakum wاlmuslimiina min cadaabi الnaar aquulu ma tasmacuun وشكر الله حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله جزاك الله خير شيخ. حملة طيب هذا نوتشيسي
إن شاء الله تعالى وحنا كبرنا حول سؤال وخصوصا موضوع رحلة متعلق إن شاء الله تعالى به موضوع كبحث قرية اللي هو شبه إن شاء الله تعالى. سائل كان شغل لي محي دين تكتبطا حوين حلقة لقاو ليلة المعراج إن ضدك الصوماليات أي همين كاس سئادة وحصان إيغو سلاد على هلب يحلوت وسؤال شكوات waataynu ka jawaabnay qodobkii u dambeeyey bay ahayd wax ka jira oo jira ma jirani سائل كان نقول له إمي سنة أيها النحيسي النبي عليه الصلاة والسلام للبتنكسي يو جيردي قديشة بالله sanayaal uma dhaxaynin bele iyo maalmo maahe wax weyn uma dhaxayno waxaynu isku xirnoon qaraabaynay sanadkaa khadiijo dhimatay magaciisa caamal xusni baa la yidhi sanadkii walwalka iyo murugada 3 bilood waxaa kala dambeeyey khadiijiyo abu aalib markuu geeriyooday khadiijana geeriyootay nabiga wuxuu ku gabanayay buu waayey waa lagu fuudaaday ardaashi baa ku soo baxsatay haddii qowska nabiga ay xoogaa raashina karsanayaan inta ay sugayaan ay guriga ku jiraan baa qori iyo lafiya calalo laga buuxin jiray dhaygood marka ay dhibaatadii ku badatay nabiga oo Taa'if aadoo ka soo noqday Taa'ifna aad loo soo geestuuray oo lagu dhibay soo noqodkii dambe isku soo noqday makana loo diiday oo uu ku soo galay kafaala uu nin gaala leeyahay ba al-israa wal mi'raaj dhacday kolka xusnigii baa laga gaaray marka inay isku sanad yihiin baa suuragal ah wabillahi tawfiiq سائل كان يقول له الشيخ محي دين تكتبطا هذه أن كتبلو حفلة لو حسين النبي صلى الله عليه وسلم ويلا هلب يعانو الله إسلاد عليه محي inaadan ka qayb gelin bay diintu ka qabtaayo tacaawunka iyo isgacansiinta rabbigeen una faray shardi buu u yeelay tacaawanuu cala albiri wataqwaa baa alla yiri walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaani baa alla yiri hadduusan wuxuu diinta waafaqsanayn waa inaad ka maarantaa haddii kale waxay kaa noqon min baabi tacaawun cala alismi waalcudwaan dembiya qaabdaraad gacan siisay waxaa nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa ku artan riyaad saalixiinka laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun nimaan mu'min ahayn waxaa ku darsan meel baas yuusan kaala dhicine cuntaadana qofaan alla ka baqayn ha siinin yuusan dembi ugu xoogaysanin wabilaahi towfiiq سائلكن wuxuu talbanaya يا شيخ إن النود عيسو إن إلهي أمة الصومالية دبعتها إلى دارات إلى مسينوين كقولوا إن إلهي كقاضي ونقول دينتنا الله نوسع عليه. اللهم احفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اكفنا شر الظالمين وسلط الظالمين على الظالمين واجعلنا من بينهم سالمين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سائلكان sheekh wuxuu leeyahay maxay ku kala duwan yihiin xadiisul qudsiga iyo quraanka oo ah qowlkii alle. سؤال مهم. أولا حديث القدس هي حديث كان نبوي أن إذن كانت المامة ومهم إلا بدو ذلك لو قال كدب له قرآن كي قدسي كان كلا فرقين حديث كان قدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل قرآن كل مديها لنكيسية حروف تيسي سقو سيديسا بان نبي الله كان نبي مركا والراوي نبي مركز سيدا حديثة سحبته وقوري سوكله وحديث كان قدسي كان نبي ربي كورينا لبا عبارة لاستعمال مركا قدسي أدما قمت إنا تسو دليليسو إنا تراهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري فيما يرويه النبي عن ربه كورنا يا عبادي إني حرمت ظلم عليكم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخر الحديث إلى تراهيد قال الله تبارك وتعالى ألا وحيري فيما روى رسوله عنه صلى الله عليه وسلم مركا حديث قدسي قال لفظا ومعنى من الله بكيمد أما حديث كان نبوي معنيه سألوا كيمد والنبي قال لحلقي أريدي سنة النبي قال يري وما ينطق عن الهوى وارتبى الحديث قدسي قال كي نبوي أنكر برنا وحين كتل ماني كان قدسي قال لفظ ومعناه من الله بكيمد سيدا قرآن وكلا أما مد كان نبوي معنيه من الله بكيمد وحديث نبي ووحي إلا ألا يري وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لفظ هنا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن كي يقدسي معه كلا فرق وحبلا معه كلا فرق أولا قرآن كسيده أولا يتواتر بكسقناذي لكن قدسي قال لك يابا إنه أحد بكسقناذو وثانيا قرآن كتصح صلاة به وقلت كنكر حديث كقدسي أسي بقمت كنكر حديث كقدسي صلاة كما تكنكرت القرآن كسيده أولا بعد صلاة كنت كنكرتا تانا وأكل فرق ميدا كلا حديثك قرآن كطهارة لو شردية وحال يري لا يمسه إلى المطهر هذا ويسق من تابا حديثك قدسك سوى تابا كرتا تكلا قرآنك فاتحة الله كاللقه أخرنتي سي التلاوة اللفظة وحنك الله يوى تلاوة اللفظة نبي نوح عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن كفر قرآن كأغريون فله بكل حرف منه حسنة 10 حسنة هل كي حرف القرآن كمذا مركز كل واحد طبعا أجرب هذا وهنا يري النبي ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف لام ميم والله يسكت دربا حرف أوران مايه ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف ومركز ألف لام ميم تراهي صدق أجرب هذا الرجال حديث قدسي هدات شيكتid ثوابka quraanka ku soo arooray oo kale kuma soo aroorin marka xagga thawaabka iyo xagga sugnaanta iyo xagga salaad asixida iyo xagga tahaarada arimaha iyo wax lamida bay qudsiga iyo quraanku ku kala duwan yihiin wabillahi tawfiiq sheekh Saïd kan wuxuu leeyahay dad badan oo muslimiin marka hore uu ku salaamay salaanta islaamka uu ku duceeyay ilaahay dartiisa aan ku jeclahay wuxuu leeyahay dad badan oo muslimiin ah waxa isaga qaldan qowmiyadda iyo wadaniyadda qadiyadda Falastiin iyo Yahuudda waxay dad badan oo muslimiin ah oo arkaan inay ka ku kooban tahay Yahuudda iyo Falastiin iyo in dhulka Falastiin marka wuxuu leeyahay kale Baytul Maqdis dad badan waxay arkaan in Baytul Maqdis ay muslimiinta Kiristaanka iyo Yahuudda sida iskaashiga gaaladu qabto marka sheekhu ilaahay khayraad ku siiyo waxaan jeclaanahay haday suurtagal ku tahay inaad arinta muxaadaro khaas ah nooga samayso. أولا سلامتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دعادي ولك مثل ذلك جعلك أحبك الله الذي أحببتني لأجله
intaa kadib qudus waxay ka mid tahay meelaha muslimiinta agtooda qiimiga gaarkaa kale oo waa meeshii habeenkii nabiga la dheelmay la maray waana uula alqiblatayn xataa maka ka hor bay qiblo ahayd waana thaani alxaramayn thalith alxaramayn madiina ha noqoto ama intay madiina kii labaad noqoto isaga kii saddexaad ha noqdo kolka waa meel muqadas oo muslimku leeyihiin oo ka dhaxaysa weeye qoladan yahuudda asal wadanka waa u ahaayeen laakiin markay gaaloobeen oy caasiyaal noqdeen ayay iyagiina dayacmeen marka meeshu waa sidaas quds waa meel muslimiinta ka dhaxaysa oo muslimiintu leeyihiin muslimiintuna waa ka ilaahay inama almu'minuuna ikhwa yiri cadaan iyo cajami iyo carabiya waxba ka soo qaad male nabiguna waa ka almuslimu akhulmuslim yiri muslimiintu meelay joogaanba waa walaalo aalaamtoodii iyo aamaalkoodana way isdhibaysaa jihaadkuna goorta muslimiin la qabsado farducayn buu noqdaa wain istansaruukum fi diini facalaykum annasru dhibaatada meesha ka timid falastiinta kolka hore dayacantay oo muslim toosan noqon weyday oo xiriirkii iyagii rabbigood u dhexeeyey meel uga dhacay aad baan u naxay goorta laygu yihi falastiin nafteeda baa yahuud iyo kiristaba le weliba cadad aad u badan nisbo yaroon qaadan waaye baa muslimiinta lagu sheegay falastiin marka iyagoo filistiin ah aslan bay nasaarna leeyihiin yahuudna leeyihiin caasiyaalkana waa ku badan yihin sida odayadoodoo kale marka dhibaatada meesha looga yimid iyagaa nimanka dayacaad iyo dulliga lahaa ugu dambaystii cashir gaar a naga sii iyagaa ina siinaya waa joogaan falastiintii iyagaa cashirada noocaasa ina siin doono aniga iga fara dhuubane anigaan cashir soomaali idin siiyo annagaa maanta falastiinna ka liidane annagaa bedelay oo dagaag iyo dawarsi iyo darxumo ku nool marka cashirkaas waxaan ka dhigayaa soomaaliya haddii alla yidha qoladan falastiinna iyagaan ka dalban doonaa waa yimaadaan meelaha rag baana ka jooga iyagaan ka dalban doonaa wabilaahi towfiiq saailkan waxaan ku weydiinaya sheekh masixidda qofka ma la masixi karaa buu leeyahay sharabaadada khafiif ah ma la masixi karaase mase waxaa la masixi karaa kuwa adag keliya haddii sheekh ay dulduleelaanna ka waran buy sidaan u fahmay su-aasha awalan sharaabaayada ma la masixi karaa haa waxaan jeclaan lahaa inaad aragtaan kitaab amiiru lmu'miniina fi lxadiid fi lwaqti alxaadir uu qoray sheekh naasir iddiin alalbani xafidahu llah wuxuu u bixiyey kitaabulmasxi cala alkhufayni waaljawrabeyn lugaha waxaa la geliyaa waa dhowr jawrabka lagu sheegayo mara caadi oo lagu wareejiyey wey khufkuna waa midkan aynu qabnaya kii hore asalka ahayo dalka turkiga laga helaa magad weeye adag shuruudo ma anzallah biamu suldaan bay fuqahada dul saareen waxay yidhaahdeen waxaan xilligaa saxaabtaba la heli karin yuusan duleelin maxalul waajibka ha qariyo biyaha yayan ka dulbixi karin marka diintan islaamka waa diin asalkeedaba fudayd ku salaysan wey nabigana markuu nala hadlaayey wuxuu nagu yidhi yasiruu walaa tucasiruu bashiruu walaa tunafiruu rabbina wuxuu yihi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj culaysba laydinma dul saarin rabbigeen yuriidu llaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra rabbigeen wuxuu le yuriid illaahu an yukhafifa cankum wakhuliqa linsaanu daciifa rabbigeen subxaanahu wa tacaala diinteenna diin fudud buu ka dhigay in qofkuu istaagga ku tukado hadduu geli waayo fadhiga haddii kale jiifka uu ku tukado haddii la xanuunsado ama la safro in salaaddii 2 ragcad laysugu keeno soonkii layska furo marka diintu khataar maahe diin baari aho macaanka iyo fiicanta ka badatay wey wamaca daalika takliifna waa jirtaa inaad khamro 2 gadow keento tira in allaha kafuuru raxiim hal ayad buu alla isugu keenay wuxuuna yidhi iclamuu ana allaha shadiidu lciqaabi wa ana allaha kafuuru raxiim ina rabbaka la sariicu lciqaabi wa inahu lakafuuru raxiim
نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كل كالرحمة إلهي أوجه إن أدخل كود المالس كدقت أو سغجانك يا واحد كلا كود بالاتنا ما يلا موقع إنما توبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم بألليه إذا وحوي خفين كيكو سابساناي هدو دلدلالنا مسح هدو سندلالنا مسح هدات ربطان مسألة إناد كلا رقتان فقه السنة للسيد سابق فيري منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري فيري مسألة بتوسل دوغها ليسان marka walaasiya maalulkan aad joogtaan idinka weeye dadkii loo dooray shareecaduna waa mawduuci adigoo hadda duhurkii qabaysto weyse qaatoo lugahaaga dhaqay kabacdina geliyey sigiisyo lugahaagoo sidii isaga nadiifan wax gaarin mar labaad dhaqidda saad yeelaysa waa dhaqan yihiinbe duhurkii baad dhaqday nadiifna waad ka dhigtay sigiisyaad gelisay sidii bay nadiif u yihiin mar labaad fujiyo dhaq waxaan howlahayn ma kordhin waxba ha fujinine 5 salaadood korkaa ka masaxay iska tuko haddaad sidanadoo kale socoto tahayna 15 salaadood 3 maalmood iyo habeenadeeda shareecadanu marka waa mawduuci takaaliifta yaan la tuurin waxaadna ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay ruqsaduu noo ruqsay inaan la nimaadno siduu u jecel yahay cazaa'imta xadiis baa ku soo arooray ina allaha yuxibu an yutaa ruqasuhu كما يحب أن يؤتى عزائمه وبالله توفيق. صحيح كما قال الشيخ وحنا وانا إيجا شكته سيد النبي وتجي عليه الصلاة والسلام أنبياء أصيغ عن نبوة جميل شنط الصلاة لما ركع هذا الصلاة تجي صلاة تجي فرض ما هي لما ركع هذا الصلاة هي ulajeedadana isaga imaamnimadiisa lagu muujinay oo iyagaba haatee imaamuya ilaa ay gidigood safteen dabadiisu ay ku tukadeen waxaa taa iiga daran haddaad i weydiin lahay sababtay dhinteen maa muxuu tujiyey alxamdulilaahi maad weydiinin anna waxaan ku oran lahaa maaqan baan ku oran lahaa markaa madh horay dhinteen ma arwaaxdoodii baa loo keenay waa suuragal ma oo arwaax kali mase iyagii baa jismigoodii waa suuragal waxyaalaha qur-aanka ku xusan waxaa ka mid a was'al man arsalnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duuni raxmaani aalihata yucbaduun kolkaa inuu nabi ciise iyo nabi muuse shir gaara la galay oo yihi muusiya ciisow dadkiinni baan wada nool lahay waxiliyo waxaraarna waa sameeyaan idinkayna idin cuskiyaane maxaa ka jiray oo la yidhi intaad adiga u sheegtay waa saxa ee waxay wataan waa been diintii muusiya ciise ay la yimaadeen ahaydna injiil iyo towreedna way bedeleen kolka waxaa weeye 2 ragcadood oo sunna ayuu tujiyo lagu muujinayay inuu imaamulbashari jamiican yahay wabilaahi towfiiq sa'ilku silay sifadeeda wax noogu sheegi karaa sidaas صلاة صفة هذه ما أخذ وبالله التوفيق. سائل كله وحول الله هاي شيء واحد نور اعتزالك عن النساء. اعتزال يعني قول الآن هذا وضوء عزلي ها إن قفك أنت للوجيو لو وراقو قرطي وررت لقد الغية كدي dhacaankii banaanka lagu daadiyo lisababin ma ilmaha miyaa la diidaya waxaan qabaa horta taa inay dhibaato maxdaata kolka horeba maa iska daysid kaag dhawaashadeeda oo deganaanteeda u dhaafti laakiin aljawaab hadday ogoshahay iyada hadday ogoshahay inta la wareeriyo in haddana loo gembiyo hadday raalli tahay dhibi ma jiro wabilaahi towfiiq. إن شاء الله تعالى محاضرة ما أنت إنت سيما وقتها شكرا لله على قدرنا إنه قال الله والسلام عليكم.